asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland. qodobada warka subaxnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo maanta kulan yeelanaya. puntland oo xukun ku riday doonyo kalluumaysi oo ajaanib ay leeyihiin. soomaaliya iyo u k oo ka wada hadlay sugidda amniga doorashooyinka. wararka dibaddana waxaa ugu doorka roon generaalka hogaaminaya maamulka militari ee Myanmar oo ballanqaaday qabashada doorasho iyo warbixin lagu sheegay in Faransiisku uu iska indhatiray xasuuqi Rwanda. waa kuma warwaageedii maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka? xaqiiq miyaa rabtaa mise been? xaqiiq ayaan raadinayaa. haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan. waa hagaag dhegeystayaal, mar kale isku soo noqod wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay dhegeystayaal. waa subaxnimo sabti ah, taariikhdu waxay ku aadan tahay dhegeystayaal 27-ka bisha 3 ee Maaj sanada 2021. intaasi aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkayga subaxnimo. haatan u diyaar garooba dhegeystayaal dhegeysiga qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ee muddaxileedkooda uu dhammaaday ayaa maanta oo sabti ah waxaa la filayaa inay kulan ku yeeshaan xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho. ajandaha kulanka xildhibaanada ayaa waxaa lagu sheegay inuu yahay cudurka halista ah ee covid-19 oo mar labaad markaasi kusoo labakacleeyay gudaha dalka lana diiwaangeliyey kiisas fara badan oo cudurka. xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxaa goor sii horeysay oo xalay ahayd loo diray fariimo ku aadan in maanta uu jiro kulanka guud islamarkaana looga baahan yahay xildhibaanada inay kasoo qayb galaan kulankaasi. saacadaha soo socda ee maanta ayaa la filayaa inuu si rasmi ah kulanka uga furmo xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho, waxaana halkaasi kusii qulqulaya xildhibaanada baarlamaanka si ay uga qayb galaan kulanka maanta ee golaha shacabka ayaa waxa uu kusoo aadaya iyadoo xaaladda siyaasadeed ee dalka ay tahay mid cakiran islamarkaana ay aanan weli heshiis rasmi ah laga gaarin qabsoomidda doorashada dhacaysa. xildhibaan maxamed idriis ganay oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in kulanka maanta uusan soo marin habraacii loogu talagalay oo ahayd inay marka hore ay ka doodaan guddiga caafimaadka golaha shacabka, halka xildhibaan luul cabdi aadan ay dhankeeda sheegtay in 2 sano ay rajeynayaan in madaxda dalka loogu daro. xalay waxaa magaalada muqdisho ka dhacayay shirar gaargaar ah oo ay yeelanayeen xildhibaanada mucaaradka iyagoo ujeedkoodu uu yahay siday uga hortegi lahaayeen haddii guddoonka golaha shacabka baarlamaanka hor keeno qorshe la xiriira muddo kororsi. dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hadashay shil tareen oo shalay ka dhacay degmada taxta ee gobolka sohaag ee dalka masar, kaasi oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. hadal qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga xukuumadda xilgaarsiinta ayaa waxaa tacsi tiiraayan leh loogu diray dowladda masar iyo shacabkeeda oo ay dad badani uga geeriyoodeen shilkaasi tareen ee ka dhacay dalkaasi. dowladda ayaa sheegtay inay garab taagan tahay masar si ay uga gudubto saameynta musiibadaasi weyn, waxaana dowladda dadkii ku geeriyooday shilkaasi alla uga bariday inuu u naxariisto, halka kuwa dhaawacmayna caafimaad degdeg ah ay u rajaysay. inta la xaqiijiyey 32 qof ayaa ku geeriyootay shilka. ka dhacay masar oo markaasi kadib markii ay isku dhaceen 2 tareen, waxaana ku dhaawacmatay 180 qof sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee dalka masar. puntland ayaa xukun ku riday doonyo kalluumaysi oo ajaanib ay leeyihiin.
sida qodobkan uu inoogu faahfaahinayo wariyahayaga cabdirasaaq maxamed sheekh siraad wadani. maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Gaardafo ee dowlad goboleedka Puntland ayaa xukunno kala duwan ku riday doonyo kalluumaysi kuwaasi oo la sheegay inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha gobolka Bari. doonyahan oo saddex ayaa laga leeyahay dalka Yemen waxaana laga soo qabtay meelo ka mid ah xeebaha Puntland iyadoo laba ka mid ah doonyaha xukun lacageed lagu riday halka midda saddexaadna la fasaxay kadib markii dambi lagu waayay. labada doonyood ee xukunka lacagta ah lagu riday ayaa waxa ay kala yihiin al dayaa iyo al saca waxaana markaasi tan koowaad lagu ganaaxay $9,000 halka tan labaadna lagu ganaaxay $8,000 iyadoo la fasaxay doontii saddexaad markii lagu waayay dambi sida ay sheegeen saraakiisha baaritaankaasi waday. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeya gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo danjiraha UK ee Soomaaliya Kati Foster ayaa ka wada hadlay arrimo badan oo ay ku jiraan xoojinta taageerada dalka Ingiriiska oo siiyo ciidanka iyo sugidda amniga doorashooyinka ee lafdhabarka u ah booliska. kulankaasi oo ka dhacay xarunta safaaradda UK ee ku leedahay magaalada Muqdisho waxaa labada mas'uul ay isku dhaafsadeen hadallo warbixino ah iyadoo markaasi danjiraha Soomaaliya aan iraahdo danjiraha UK markaasi u fadhiya Soomaaliya ay sheegtay inay ka qayb qaadanayaan amniga doorashooyinka xilliga markaasi Soomaaliya ay ka dhacayso doorashooyinka. taliyaha booliska ayaa dowladda UK uga mahadceliyay taageerada ay siiyaan Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan ciidanka booliska. dowladda UK ayaa ka mid ah dalalka taageera dhismaha dowladnimada Soomaaliya oo ay ku jiraan hay'adaha nabadgelyada ay booliska ugu horeeyo. waa hagaag dhageystayaal halkaad warkaasi kala socotaan waa idaacadda Radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland. markan hogaamiyaha maamulka militariga dalka Myanmar ayaa carabka ku adkeeyay ballanqaad ah inay qaban doonaan doorasho kadib afgembigii dalkaasi ka dhacay bishii February. Generaal Min Aung Hlaing ayaa ka hadlayay goob ay militariga ugu dabaaldegayeen maalinta ciidanka dalkaasi. wuxuu intaa ku daray in ficilada lagula kacay dibadbaxayaasha ay ahaayeen kuwa aanan habbooneyn hase yeeshee dadka ka soo horjeeda afgembiga ee ku baaqay dibadbaxyo waaweyn ayaa wax militariga ugu hanjabeen inay gacan bir ah markaasi lagu qaban doono. generaalka hogaaminaya maamulka militariga Myanmar ayaa dhanka kale waxa uu goobtii xuska lagu qabanayay ugu soo dhaweeyay ciidamo Ruush ah isaga oo Ruushka ku tilmaamay saaxiibka dhabta ah ee Myanmar. Generaal Min Aung ayaa sheegay in militariga sababta ay awoodda ula wareegeen tahay waxyaabaha sharci darrada ah ay sameeyeen xisbiga The National League of Democracy. maamulayaasha militariga ayaa xabsiga dhigay Aung San Suu Kyi hogaamiyaha rayidka ah ee dalkaasi ahna madaxa xisbiga National League. xisbiga NLD ayaa si aqlabiyad leh ugu guuleystay doorashadii sanadkii hore dalkaasi ka dhacday hase ahaatee militariga ayaa sheegay in doorashadaasi lagu shubtay. afgembigaasi kadib waxaa dalkaasi weli ka socda dibadbaxyo ay dadka uga soo horjeedaan xukunka militariga. tan iyo intii dibadbaxayaasha bilaabeen ayaa waxaa booliska dalkaasi lagu eedeeyay in awood xad dhaaf ah u adeegsadeen islamarkaana ay dileen dad dibadbax markaasi dhigayay. ugu dambeyntiina dhageystayaal Faransiiska ay tahay inuu qaado mas'uuliyad culus oo ku aadan xasuuqii Rwanda 1994 warbixin ay qoreen taariikhyahano Faransiis ah ayaa lagu sheegay sidaas. hase yeeshee ma aanay helin wax caddayn ah oo muujinaysa in Faransiiska wixii dhacay ku lug lahaa. guddigaasi qoborada ayaa warbixintooda waxa ay u gudbiyeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron
warbixinta ayaa sheegtay in faransiisku uu iska indhatiray diyaargarowga xasuuqaasi. ugu yaraan 800,000 oo kun oo qof ayaa dhintay markii kooxaha xag jirka ah ee qowmiyadda Hutuga ay xasuuqeen Tutsiga laga tirada badan yahay iyo kooxaha markaasi qunyar socodka ah ee Hutuga. kooxda khubarada ayaa waxa ay daraaseeyeen faylasha rasmiga ah ee Faransiiska. daabacadda warbixinta ayaa waxaa suuragal ah inay gacan ka geysato in la qaboojiyo xiisadda u dhaxaysa Faransiiska iyo Rwanda, iyadoo Rwanda ay waqti dheer Faransiiska ku eedeyn jirtay inay arrintaasi ku lug leedahay. Rwanda waxaa markii uu xasuuqa uu ka dhacay maamulayay madax Hutu ah waxaa intii u dhaxaysay bishii Abriil iyo weliba Juun ee 1994 hase yeeshee markii dambe waxaa awoodda ka tuuray xisbiga Tutsiga ee horkacay Rwandan oo markaasi uu hogaamiyo Paul Kagame oo haatan ah madaxweynaha dalkaasi Rwanda. warkii subaxnimo oo aad kala socoteen dhageystayaal idaacadda Radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland xilligani waa naga inta dhageystayaal warka subaxnimo waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Kamaal Maxamed Axmed Keenaan. tan iyo kulankeena kan xiga dhageystayaal hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.